qaar ka mid ah odayaasha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka cabanaya saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda kuwaasi oo ay sheegeen inay barakicin ku hayaan shacabka ku nool deegaanka Ceel Jaalle ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose. Cabdiweli online ayaa warkan afgooy nooga soo diray. nabadoon Jibriil Cusmaan Dhaansha iyo nabadoon Maxamuud Ilaal Culusow oo ka mid ah waxgaradka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka digay barakicin ay sheegeen in lagu hayo dadka degan deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Marko ee gobolka Shabeellaha Hoose. nabadoonada ayaa tilmaamay in saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ee ku sugan deegaanka Ceel Jaalle ay ku lug leeyihiin barakicinta dadka degan halkaasi, waxa ayna ugu baaqeen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in arrinka ay soo farageliso. dhulkaas ma ahanin gobolka Banaadir, waa gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa ka soo qayb galay gobernatooraha gobolka iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada. dadkii ay arrintaas ka soo shaqeeyey amalguda lagu siiyey. weerar cadayna ku haya hadda ay ku hayaan niman saraakiil ah, weliba nin janan ah ku haya. marka waxaan leenahay yaanan isku ceeboobin, dawladda dhexana waa ogeysiinayna. ninka daan oosan meesha ka noqonin dhibaato badan baa ka imaan doonta. dadkii odayaal yimid uu leeyahay waa shabaab oo meesha deganay. marba waxa uu leeyahay nin odayaho meeshan ka tirsan hada kor shabaab ayaa uu yaasalahay. waa adab darbo. marka waxaan leenahay garaadada dawladda laguma dhaco dadka wax baa loogu qabtaa. annaga waxaan dadka mas'uuliyadooda ilaahay ka sokow aan u hayna mas'uuliyadda 24 saacna waxaa lagu gumaadaa lagu qaadaa oo dhulkooda iyo dadnimadooda in lagu barakiciyo la rabo shabaabad. 24 saac waxaa lagu raacdaysanaa shabaabad. waxaa la rabaa intaas in dhulkooda la banaysto iyo dhiigooda. arrinkaas waa ka digaynaa, waxaan u sheegaynaa wasaaradda gaashaandhigga, dawladda federaalka, dawladda dhexe, maxkamadaha, dhammaan dadka degan Ceel Jaalle. waxaan u sheegayaa in dadkaasi annaga waxa wada wato dharka saraakiisha dharkooda janan waxaa lagu yahay dawlad maahan in qaada garaadaan. qaranka ayaa lagu difaaca, dadka ayaa lagu difaaca. maaha in dadka lagu gumaado shabaabaad tihiin, kuturoobaad tihiin si loo banaysto xoolahooda in loo dhacana la rabo. Cabdiweli Ali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.